in marar fara badan ay hawada naftu ay jiidanayso ay ka qaalib noqonayso haddana isa soo qabanaya oo marka adkaanaya ruux iska galab oo xaalkiisu uu kolba dhinac u dhacayo adiga almuhim waxa weeye quraanka kariimka ah iyo sunnada nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa laga fahmayaa dadku labada dariiq baa la kala hayaa عباد الرحمن iyo عباد الأهواء الله تبارك وتعالى نحريست بدن kuwa caabuda iyo kuwa hawadooda iyo balwadooda caabuda hawada oo marka la raaco oo afkaarta khaldan ibn aadam ku dajistay yaani waxa weeye la soo gaaray inuu ruuxu iska daba galo iska raaco ama naftiisuba siday rabto uu iska raaco waa dalaal waay xaqiiqada dalaalka iyo lunsanaanta way quraanka kariimka ayaa macnaha tilmaamay oo ruuxaasi xaqiiqo waxa ah inuu ku tilmaamay yahay waa ruux lunsan oo dariiqi ka lumay ujeedadii loo abuuray ka lumay xikmadii ka lumay garashadii iyo cilmigii ka lumay waa ruux lunsan oo habowsan way Allah tabaaraka wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim wuxuu aayaadka uu ku sheegay waxa kamida qul inni nuhiitu an a'budu alladhina tad'uuna min duni Allah qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idhan wama ana min al-muhtadin waxa tirada nabi allow war aniga waxa la ii diiday dadow inaan caabudo waxyaabaha alla ka sokow aad caabudaysaan inaan idin kala qayb qaatoon idin la caabudo taa waa la ii diiday qul la attabi'u ahwa'akum sidaad rabtaan anigu raaci maayo rabitaankiina iyo waxaan daliil iyo cilmi ku salaysnayn oo aad soo gaadheen oo iska taqliidinaysaan ama idinkuba aad samaysateen inaan iska kiin daba galo waa la ii diiday taa iyada qad dalaltu idhan wama ana min almuhtadiin haddaan iska kiin raaco iska kiin daba galana oo fikirkiina iyo ra'yigiina iyo alla waxaan ahayn oo la caabudo idinku raacana dee markaa waaban lunsanahayba mana hanuunsani sidaa ku dhabaa la yidhi marka ittibaacu alhawaa yuujibu ad-dalaal waay hawada oo la raaco waxay waajibisaa lunsanaan saas daraadeed baa quraanka kariimka Allah ku xukumay tabaaraka wa ta'ala in uu lunsan yahay ruuxa hawadiisa raacsani aayad kale rabbi tabaaraka wa ta'ala markuu la hadlayay aayad kale rabbi waa ku tilmaamay wa inna kathiran la yudilluna bi ahwaa'ihim bighayri ilmin inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin in badan oo dadka kamida dadka ayay luminayaan oo dariiqa saxda bay ka luminayaan kitaabka Allah iyo sunnada nabi bay garab marinayaan hawadoodayna ku luminayaan waxay iyagu samaysteen jeebkooda kala yimaadeen waxay naftoodu jeclaatay oo xujo cuskanayn taasay ku luminayaan oo dadka ay ku leexinayaan oo dariiq kaga leexinayaan Allahna tabaaraka wa ta'ala waa midka u ogaansho badan kuwa xad gudbaya oo xadgudubka waxa kamida in ilaahay tabaaraka wa ta'ala dariiqiisa aad garab marto intaana aadan ku gaabsanine adoomadiina aad ka shaqayso siday u garab mari lahaayeen oo u lumi lahaayeen Allah tabaaraka wa ta'ala arinta waa ogsoon aayad kale tan rabbi wuxuu ku leeyahay waman adallu mimman ittaba'a hawaahu bighayri hudan min Allah yaa ka baadinimo badan oo ka lunsanaan badan oo ka habow badan ruux hawadiisa raacay hanuun alle la'aanti isagoon ilaahay hanuun ka yimid haysanin oo waxyigii rabbi aan haysanin oo baraahiinta cilmiga ee kitaabka iyo sunnada aan haysanin hawadiisa ruux iska raacaya ka baadinimo badan يعني وحويان استفهامك وبمعنى النفي عد كبادني ما بدني ما أي شرتوي أنت إلهي أبوري
waxa ugu baadinimo badan oo ugu lunsanaan badan oo dariiqa xaq iyo sawaabka ugu fogaansho badan waa ruuxa hawadiisa